ganacsatada waxgaradka iyo qaar ka tirsan culimo diinka ku dhaqan xaafada Soomaalida ay ka degan tahay magaalada Johannesburg ee xaafada Mevel oo maanta xarumahooda ganacsi ku booqday TV-ga caalamiga ee Somsite ayaa ka warbixiyay sida ay uga xun yihiin dilka loo geystay Sheekh Cabdiqaadir Nuur oo maalmo ka hor lagu dilay magaalada Garowe ee maamul goboleedka Puntland. dadkani waxa ay tilmaameen in arintani ay tahay mid lagu daba jarayo culimo diinka Soomaaliyeed iyaga oo sheegay inay ka xun yihiin dilka sheekha oo muddo 50 sano ah ka dhaxwaday shacabka Soomaaliyeed fidinta diinta. dadkii oo la kulmay TV-ga Somsite ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la dhahaa Caaqil Shukri Baarud Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax dilkiisii Allah u naxariistay wuxuu ahaa dil aad u foolxun oo aad looga naxo sheekhuna wuxuu ka dhintay Soomaali oo dhan Ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistii jannaha ka waraabiyo sheekhu wuxuu ahaa culimada ugu waaweyn ee Soomaaliyeed saadarteed haddii aan nahay ganacsatada ama wadaadada Johannesburg South Africa aad ayaan uga naxnay Ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa bedel khayr qaba inuu nasiibo kan waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda Soomaaliyeed qaasatan ehelkii uu ka baxay Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax Sheekh Cabdiqaadir Gacmi oo ahaa caalim Soomaaliyeed waxaan aad uga xumahay geerida Sheekh Cabdiqaadir sababtoo ah Soomaaliya indhaha ayaa laga ridayaa indhaha in laga ridana wax qabto ma aha shacabka Soomaaliyeed ilaahay laga boqo dadka shacabka indhaha ka ridayana ilaahay ka taqaan Bismillahir rahmaanir rahiim magacayga Maxamed Maxamuud Samatar كل أديان يروح مع ذلك الشيخ الشيخ عبدالقادر نور أديان يروح معي إنك صار الشيخ أنا أقول لهن هذا واحد أدوح مع الشيخ الشيخ عبدالقادر سواها الشيخ وين علماء أدي لو قدر يوضع الصوماليها واللي بقى الشيخ وها أدي دعوة أد وسوق قاتي أقوم بدنا ولا دين الإسلام ده وحدنا كسوقاتنا بدين تيو هرمارك ودنا كسوقاتي أديان دي يروح معي واحد قال أروح معي واحد سنة مقدر إيه هاي واحد وصل القرية بسبب تنا الوجود العلماء بدر الصومالي اللي قلنا إيه صادرتنا waxaan aad uga xunahay markaasi aan aad iyo aad dilkaas waajid aad xun waxaan leeyahay markaasi in ummadda Soomaaliyeed dabaan culimo iyo waxaan iyo maamul ahaan cid waliba in talaabo laga qaado sidii waxaas looga hortagi lahaa maadaama yahay waxaas wax lagu soo noqday halkan wax kale oo aynkaas kama dhicin laakiin in badan culimada waa ka hadleen taariikhdiisa masaajid waa laga sheegay in badan tacsiin waa loo diray anaguna tacsiin ayaan u dirnaa waxa leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa leeyahay waxaan tacsiin u dirnaa ehelkii uu ka baxay ummadda Soomaaliyeed dhammaan uu ka baxay iyo maamulkii uu ka baxay waxa jaamacadu waxba hay dhammaan waxaan ku dirnaa tacsiin ayaan u dirnaa waxa leeyahay isaga naxariista janna Allah ka warabiyo Abdixakiin Ibrahim Cawaale Somali Sat TV Johannesburg Koonfur Afrika